waxaan dhiganayaa iskuul. Aha, Waxaan jiray 17 sano. aha, Een fasalka 9aad baan ka baasay, ka 10aad baan markaa galay. aha, Waxaan isticmaali jiray Facebook aha, oo aad baan ugu badnaa. صح, Waxaan iska baranay inaan aha, wiil baan iska baranay. Wiilkii adigu muddo ilaa 6 bilooda baan wada sheekeysanaynay. Inankii adigu soo jiidasho weyn ugu sameeyay waa jeclaaday. aha, Marka waxyaabo badan oo iga sheekeyn jiray asiga nin weyn oo ahaa markaa. nin weyn u ahaa adiga 17 sana jirtay 17 years old ahayd asagana qiyaas ahaan wuxuu jiray markaas 32 meelahaas 32 jiray. meelahaas u jiray. marka jacayl kuga abuuray haa qofkii kugu horeeyay jacaylaatu mu ahaa marka mise isagoo ahaa. aha Marka waxaa dhacday adigu muddo 6 bilood markaa sheekeysanay si degdeg ah oo wuxuu dhahay waan isguursanaynaa. Anigana marka waa ku farxay because waan jeclaa. Waxaan u sheegay walaalkay oo jigjiga markaa joogo baa waxaan ku yiri wiilkaasa wuxuu dhahay waan ku soo doonayaa. Okay waa caadi wuu dhahay igu soo xir. Waan ku soo xiray markaa nambarkiisii baan siiyey. Way isla hadleen way kulmeen. Sidaan u sheegay wuu sheegay in aan maaragta isguursanayno. Walaalkan wuxuu dhahay wax dhib ah kama qabo laakiin aabaheed baan u sheegayaa. Aabahayaa loo sheegay. Aabahay markii loo sheegay wuu i weydiiyey haaban koor xataa qabiilkiisa ma ogeyn qabiil kale ii sheegtay ahayd markaa ninka oo wax badan ma sii weydiin jirinba. يعني قبيل كلا أنت ويدي سمو قبيل كلا كوشك تيم سأدا ولي ويدين يعني maya aniga waan weydiiyey marka iskuursan rabnay ee ahayd yar ka hor laakiin asagu wuxuu ii sheegay qabiil kale oo sa ahayn markaa. بينو كوشك Been buu ii sheegay. Aabahay adiga uu la hadlay odayaashiisii iyo adeeradii waxaas isla hadleen. Ninkii waxa la soo ogaaday wuxuu aniga aan aabahay u sheegay meehe wax kale inuu qabiil kale ku soo baxay. Markii la i weydiiyey sorry aaba uu i weydiiyey uu yiri ninka sasaad ugu tirsaasuna noqday maxaa khaldan. Waxaan ku yiri anigu sidoo ii sheegay saas ahayd laakiin qabiilba ma kala aqaan waan mooday baa iri waan qariyay xataa laga yaabo inuu ii sheegay anigu mooday baa ku iri لكن وأوجد إنه كوشك أصلا si fiican oo oga xataa waan weydiiyey ina qabiilka jeceshay waa u malay because ma qabiilkaas tahay waa igu tiri weeri aniga daas waan kuugu sheegay ahayd مركا قبيل كوشك تحت ogaadeen buu ii sheegtay asaga أصلا نحن نقول laakiin asaga samaroon buu ahaa godob biirsi أوكي مركا أدي ما تري أوجد ما تهاي مركا سوها كلها لقيا aniga marka hore jigjiga dadka joogo dhan ogaadeen baan u qabi jiray marka daas waan u weydiiyay aan ku dhahay ogaadeen miyaa tahay سو أدا كهر مريض خلت كذا سمي ستة سو ويدين سو laakiin asaga uu ii sheegi karay soo ma ahan oo ima dhihi karay ma iyo dadkaas aan ahay kale. Xataa markii ay runtii imaaday u dhahay waa isguursanaynaa inuu ii sheegay ahayd. Aabahayo markii ay weydiiyeen waxaan u sheegay qabiilka kale ahayd. Marka aabahay adigu cala kul wuxuu ka gudbay uu isiiyey marka waa liigu meeriyay ahayd waan joognay. Muddo adiga 2 bilood ka bacdi wuxuu dhahay gurigan ku diyaariyay guri isu sawiray iyo alaab tusay gurigan ku diyaariyay marka ina ay imaadida rabaa adigoo dadkiina waxba u sheegin. soo dhuumo kuley ka soo dhuumo dhahay soo markuu meherka dhacayo wili aad waxa joogtaa waxaan joogaa lascaanood anaka intuu meherku markuu dhacayo in uu soo doonto iyo in lagu waxaas in telefoon ay ka wada dhacayo telefoon bay ka wada dhaceen walaalkii baa marka ninka soo arkay oo ninku siduu yahay bay ii soo sheegay ahayd wuxuu yiri gurigaasan ku diyaariyay soo dhuumo familkaagan laakiin waxba u sheegin aniga marka ii timaadey u sheegay waxaan ku dhahay waayahay sidee ku gali karaa marka Itoobiya wuxuu dhahay wax dhib leh ma ahan mar wuxuu igu yiri xataa passport inaan ku sameeyaa rabaa oo aad sabab ka soo dejiyay passportka marka fiirinay lacag badan ay noqotay iyo passportka iyo maalmo badan ay noqotay sax wuxuu dhahay marka waayahay gaari iska soo raac ayadoo lii ogeynaa subax gaari markaa iska raacay oo qofna ogeyn inaa iskuulka adeeliye qabo cidna ma u sheegin markaa sax waan u tegey waxaan ugu tegey Wajaale
aha marka xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliya okay way igu hor imaaday hotel aan degnay meeshii joognay reerkeena waxba uma sheegin anina waa ka baqaya waxba uma sheegin maalmo markaa meeshii deganayna wuxuu dhahay waxaan kuu sameynay aqoonsi oo ku gashid jigjiga aha wuu iga tegay markaa meeshii anigoo jooga asaga wuxuu aaday jigjiga maalmo iga maqanaa kabacdi wuxuu ii keenay wax ID card oo kale aha uu dhahay meel computer ah ayaan ka soo sameynayaa aha wixii markuu ii keenay dadka waxay dhaheen waxaan ma anfacayso oo in laydinku xira baaba dhici karto aha meel computer ah wax ina ardaydka ah wax soo sameeyay aha waxaana waa khalad baa dhahay in xabsi weyn ku gashiin baaba dhici karta aha oo laga reebo ayada aha marka wuxuu ku fikiray oo wiil meesha ay wax isku ahaayeen oo joogay wajaal deganaa wuxuu ku fikiray gaariyaal caanoolayaal inaan raacno aha marka gaariyaasha islaam caanoolayaal iska buuxiyo space ba wax nifaas ma lahan meeshaas aha korkiisa baa fuulnay markaa aha